oo ah deegaanka qurac joom kuwa deegaanka qurac jooma ah oo isla qurac joomada ah kuwana waa degan yihiin kuwana waa ku barakacayaasha oo kor nooga iman haddii aan deegaanka u kuuro galnay hay-adaha samafalka waxay soo dhiibeen deeq ay u soo dhiibeen dadka masaakiinta ah ee barakac dadka masaakiinta oo barakacay waxay lahaayeen ee hay-adaha ay soo dhiibeen haddii aan u kuuro galno annagoon hunguri ku bedelan annagoon qof bini aadan uga fegi haddii aan nahay odayaashii xoogaalka ahayd ee beesha qurac joom waxaan xog helnay in lagu takrifalay takrifalkaasoo ah lambar 1 waxaa keenay deeq waxa weeye kaarar hay-adda la yiraahdo asib waxaa gacanta ku qabtay maamulka cusub ee hadda la doortay oo oday ka yahay cideey waxaa dhacday dadkii Soomaali baan waa ismaqaana qabiil baa la soo dhaxgalay jufooyin baa wax loogu dhiibay haddii wax loogu dhiibay cadaalad baa la soo wahayay wuxuu ahaa mas'uul waxaa dhacday in dadka magacyihiisa magacyo la kor saaro ee dadka masaakiinta ahaa ee barakacayaasha ahaa ee loogu talagalay inay ku calabsadaan hay-adahooda samafalka ah in la daba mariyo waxa weeye guryo lagu dhisto ama dadaan isku deegaan ahayn ee Itoobiya ah lagu qoro lambar 1 dhul dheer meesha la yiraahdo cadays meesha la yiraahdo waxa weeye dhaliyow meesha la yiraahdo burida cata meesha la yiraahdo baardheer meesha la yiraahdo ceelba meesha la yiraahdo waxa weeye qorf mareed lagu qoro Itoobiya waxay ka qaataan ayaga macaawin markaas sida badan annagana Soomaali baan hay'adaha anaga waa Soomaali Itoobiya anaga waxa noogu imaadaan sababta kala caduud baan nahay dadkaas marka waxaan u arkaa xaqooda xagga ah oo dadkaas la seenayo in lagu lumanayo barakacayaasha ka soo barakacaysan ku dhooble kunasa fikta kunasa dhammaan in adeeg barakacayaasha dhammaan dadka soo barakacay ee wadanka degan in lagu lumanayo xaqooda ayagoo sheeganay awood lagu soo magacaabay meesha lay gobolka Bakool ama magaala madaxda Baay sheeganaya waxaana soo magacaabay wasiir Cabdilaahi Fari anaga soo magacaabay dekreeta madaxweyne ee waxa weeye koonfur galbeed baan soo magacaabay ku tagrifalay war koonfur galbeed meeshan kama dhaqan karin xaquuq koonfur galbeed ay soo qaaday oo madax banaan oo anaga haddaan nahay qurac joom aan qaadanana ma jirto waxaan qaadanaa anaga haddii waxaan si hay'adahaas daaqaha bixin ee waxa weeye gobolka Soomaaliya degmada Soomaaliya ceel barbe aan laga yaabaa in wax laga soo gaaraan waxana maxaa dhacay in loo qaybiyo Itoobiya yaaniga Itoobiya goorma seef isku goosan goorma wixii ka imaaday meesha la jiray digdiga goorma qurac joomaalisi goorma wixii Muqdisho ka imaaday ama ka imaaday Baydhabo goorma dhowr dheer iyo degmada qalaaf loo gudbiyay hadday taas aan moognahay dowladda Soomaaliya ha noo sheegtay ama hay'adaha deeqda bixi ha noo sheegaan waa qaadanaynaa day wax jiriyihiin laakiin intaan joogo anu 7 sano jira intaas ma arkin Itoobiya iyo Soomaaliya calaqaad isweydaarsada waaba aragnay laakiin ayagoo macaaw isku darsanaya deeq isku dhaafsanaya oo kuwan xagga loo gudbinayo kuwan xagga loo gudbinayo marka waxaan u arkaa marka gabood fal dadkaas waxa barakacayaasha masaakiinta ah nin alla ninkii loo soo diray lagu kalsoon yahay aan soo tuso karno haddii aan nahay waxa weeye deegaanka qurac joom odayaasha wax laga weydiinay haddii aan soo tuso karno waxa weeye ha soo dirsadeen ama inta ka magacaabadeen weli waxaan dadka inta laga magacaabay maamulka cusub oo hadda joog oo cideey waxa weeye oo u weyn ma matala mana soo fiirin karaan soo fiiriyan lama dhihi karo waxaan loo dhihi karin mar wuxuu ku leeyahay 600 aan hayaa mar wuxuu ku leeyahay 800 aan hayaa mar wuxuu ku leeyahay 100 baan hayaa mar wuxuu ku leeyahay 50 aan hayaa waxaas maxaa waay maamulada waxaan arki jirnay maamulada waxaan arki jirnay hadday kun hayaan hadday kow hayaan waa bandhigaya وساد ما تحولها الراعي
wuxuu ku leeyahay wax loo magacaabo guddi baa u magacaabi jiray oo dhihi jiray nimankiina soo dhibaatoodiyo 5 nafar baad leedihiin 10 nafar baad leedihiin qaar mar hadday qaataan mar labaad waxay dhihi jireen masaakiinta ugu deeqnay war hadda deeq iska dhaafay in la dhaca oo deegaanka Itoobiya lagu mari sheegtaa dhaca haddii been la moodaa waan caddaynayna lambariyaa lahayaa lambariyaa hayna magaciyaa hayna tirsiga gudaha hayna الرحمن الرحيم magaceedu waxaa la Roble Cabdi Yaabe anaa ku hadlaya bulshada meesha ka soo qayb gashay waxaan u sheegayaa maamulka koonfur galbeed dadka ay noo soo magacaabeen in ay noqdaan hirtisayngoon awrta loo daba dhigaa laakiin loo hordhigo waxaan markaa xilka la soo saaray waxaa noo imaaday 200 ruux oo ICF dadkii loo magacaabay in kaararkaas masaakiinta la siiyo waa la dul saartay waa koow laba bishii ICF ay kaantay bishii ka saddexaad haddana waxaa soo diray asiib haddana waxay soo dirtay waa garan weyn bulshadii haddana waxaa la siiyey ismaamulka Itoobiya جرو بديه قارن إثيوبيا دي قارن الصومالي دي وحي إثيوبيا دي قال يسوي لكن وحي الصومالي دي قال لمسين أو كفر كل بدها لمسين أو قرع جم وحي حكومة لمسين أسيب وحي هذا المال حكومة وبالكل يردولي فيه لا نجو لا واحد شخص ليه شخص يسوي فيه بايع وحيسه ودتك مساكين إنه سيره وإنه وحيسه مالك وقال أنا هنقول يسديه منه هيدا هنقول عنده منه هاي مادنا حاشرين ودتك مساكين وحاسينا لكن شخص يجيب كيسة كوشنا شخص يجيب كيسة دتك جواد فلاها كوهايا هكيل عليان وأنا هايدي بالشدة والشغال هدي للربع مثل بعض وعن لي عبد الله محمد هذا دتك أول شيء وأنا ججالة ونحل وانا وسير حل هايا دتك سوما عاوي أو 90 تكون هنقبل أو 90 لا حريرين كذا هنصمها بسم الله وما تي هورت بالشوي تمشي اسكوت ميد مصب كستو كو جوجتا دhallinyaro odayaal nabadoona qaas ah waxgarad ka dhamaan waan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh waxaan leeyahay ninka aqlaban adoo hadla waxba kuma dhaafo adoo gadaasha hadlina hadalkaada wuxumeeyaa war badan ma saxarin laakiin in yaraan ku direeyaa deegaankii dhibkiisa raga ka hadlay waa sax intay ka hadleen waa rumayna dhibaatada horta ugu badan maamulkii qurac joomo nidaam darre ay deegaankan ku sameeyeen waa koow kuma eka hay'adaha cabashadeeda kuma eka dhibaatada deegaanka ka jirta amni darre ay ku soo kordhiyeen kamid ah wadankan waa nabad ayadoo sanoodin badan dalal dirisi ay colaad ka jirtay ay nabadgelyo ay ka jirtay hay'adaha ayagoo ayaga joogin oo shacab joogo ilmo federaal joogin ay si nabadgelyo ugu adeegayaan haday SAF tahay iyo haday WF bay tahay horta waxaan u sheegaa dadkii guud oo maanta na daawanaya ama hay'adaha saabsanaadaan ama mas'uuliyiin deegaankan ka dhalatay ahaadane amni darre ay nagu sababeen inaan ku kala fogaanay bulshadii geliyeen dhibaatooyin ka jiraan deegaanka qurac joomo waxaan marqaati furaa kaarasha la sheegay qabalooyin Itoobiya in laga iibsaday inay sax tahay aan annaga Soomaali ma xuduuday wada leedahay Itoobiya inta ku dhaqantay jijaalay inta Soomaali laba u qaybaanahay WFP ha noqoto ama SAF ha noqoto kaarasha waxay ugu soo tabarrucday dadkii qaxootiyaalkii barakacayaashii deegaanka qurac joomo ahay waxaa la sheegay ilaa Shabeelle in kaarashi lacag la dhaafsaday wiji lagu sameystay qaxootiyaalkii ilaa 32 kaam aniga ma haya kulay saxdeeda warqadeeda 32 kaam inaan waxba laga gaarsiinin oo dad qaas ah ama lagu wiji sameysto ama lacagaha la dhaafsaday ay dhacday arrintaas musuqmaasuqaas taas waa sax taas marka cidii ay qusayso waxaan aan baaq u dirinaa wasiirka annaga oo reerka dhan koonfur galbeed ku matala marka hore waxaa noola keenay laba wiil oo safar ku kala timid waa laga keenay waqti Albert Diabe Sala labada nin inta degan ma jirin group nin kule maasna jirin waan ku soo dhaweynay magaaladooda ka xishoodeen meel la yiraahdo u dhaxayso dhagaxtuur iyo fikti ay gaadiidku ugu degeen baqdan deegaanka ay ka qabaan awgeed waxay ugu baqaa ayaga la weydiinaa su'aashaas yani inta
deegaanka annagaa damaanad qaadnay annagaa nabadgelyo kusoo dhaweynay dajaala u dhasheen aan kusoo dhaweynay ayagoo qaxootaan inay deegaan ka noqdaan aan kusoo dhaweynay waxay sababeen inay isku kaandilaan amni darre deegaanka ka dhaliyaan safarkii inay muslimiin inay Soomaaliyeed wadada xamar iyo Itoobiya goday u kala gooshay isbaaro u dhigtaan dhibaateeyaan ay isku dayaan mararka qaar dowladda federaalka Itoobiya oo degan meesha militariga inay shacabka ku cabsi geliyaan looga hinjibaado dhibaatooyin intaas iyo in ka badan annaga shalay ayaan damaanad ka ahayn ciidamada military Itoobiya sharciga ku jooga sharciga kala xir dad shaati looga hinjibaadi kara mineen dad la cabsi gelin kara mineen deegaanka ayadoo ciidamada federaal Itoobiya joogin aan anaga joogno nabadgelyo ku joogno Itoobiya nabadgelyo ugu timid shabaab kama xoreynin dhibaato kale ugu meemaanin xeeriyood dhisan iyo dhufays iyo guryo dhisan ay degtay aan ku wareejinay ilmo markaa 18 jiryaal shalay dameen ku keenay waxaan dhihay wasiirka shalay isku qaldamo waa walaalkaan waa jecelnahay beeshu waa matala kullay dad kala tashtay ayalkaas isiga maas aqooni sida banasaan dareema dadka askala tashtay dadkii deegaanka matali lahay umayna sheegay deegaanka odayaal guurtu laga tashan jiray camaamadii bokoora loogu talin jiray dawlad wasaarad ka soo baxda warqad kama shaqeyn jirin haddana heshiisaan ku een haddii heshiiskii waa la baal maray Cabdilaahi Fari hadduu wasiirkii waa maatiya hadduu dad xun u soo adeegeen dadka iska bedelo odayaasha guurtidii iyo deegaankii dhibkiisa og dhibaatada waxaan codsanaynaa deegaanka amni uu noo yahay dhibaataa laga wadaa ada waa ka maqan tahay inaad xologaal ka noqoto dadkii shalay aad keentaa dhibaato ku wada inaad naga bedeshaa codsanayna waxaan kaloo codsanaynaa bulshadii dijaalo ku dhaqan Bakool waraajo waqti waa deegaan dhan u qaranta degma aan sugayna degmo iyo horumarin wasiir waxaan leenahay sidii rag ugu horeeyay ay sheegeen ayirka markii waxa la canaanan lahayd hadii dadka la horgeey taas wax kuma wadi karaan kamana ogelin ayal aan tala ogoleen nin oo nabdoon oo adeerkii wuxuu yiri sheekadu waxay aad iga maqan tahay wuxuu yiri abdid abdid ninki kani isiga ay awlada ana ilmaha waa abdid ilmo odo ogol ma ahan waa ayal la keenay taasna anaga waa diini wadanka waa amni haydaha yimaadaan cabashada laga muujin waa sax waa sax waa xil WFP